waqti badan la fadhiyay waxaan aadi doonaa si toos aan u gali doonaa barnaamijka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xisbiga UPD kala sharxitaan badan igama baahna asxaabtii ugu horeysa aad u soo sharaxday laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo qof walba markuu UPD ku soo biiro waxa saaran mas'uuliyad ah inuu ka qayb qaato horumarinta xisbiga maadaama anu waxaan ku tilmaamaa ku soo biirid maahan waxaan ku tilmaamayaa mulkiilayaasha ina ka mid tahay xisbiga marka soo dhawaada dhamaantiin waxaad tihiin mulkiilayaasha xisbiga xisbigana waan lagu soo kala horeeyaa maahane lama kala lahan waxaan toos u gali doonaa foomkana rabaa inaan idin sharaxo wax yariisa qof walba waxaan u malaynaa qalin iyo foomka waa haystaa qaybta ugu horeysa waa la wada fahmayaa waa magaca oo afaran meesha la jira magaca saddexan annagu waxaan dhahan magacii afaran ha laga dhigo naynaysta haddaad leedahay goobta dhalashada sanadka dhalashada xaalad nololeedka dabcan xaalad nololeedku maahan inaad lacag haystay waxaas waa inaad doob tahay inaad guursatay ka mid noqoshada inaad ka soo mid noqotay xisbi kale haddaa xisbi kale ka soo mid noqotay ahaa tiraahis waxaa lagaa rabaa warbixinta xisbiga kale yani xisbigaas kale magaciisu saas u ahaa xubintaasaan ka hayay sababtaasaan uga baxay haddaa may tiraahid qaybtan ka hooseyso o dhan waa ka tegaysaa marka waa ka boodaya sababtay waxaas ma qoraysid waddankaad degan tahay kolla waa waddankaad degan tahay markii la yidhaahdo gobolka waa Kampala degmadana waa isla Kampala xaafadana qof walba xaafaduu degan yahay telephone numberkaaga oo 25 ka bilaabanaya emailka iyo facebooka dabcan emailkaas waxa lagu soo xawilo doonaa marka lagu registereeyo warbixintaada cidda kuu soo jeedisay ama kuula talisay in xisbigan ka mid noqoto magaciisa iyo warbixintiisa inuu uu yahay maamulku inuu ka tirsan yahay inuu wax garad yahay inuu siyaasiyin yahay haddaa xataa ku riyootay waa dhihi kartaa ku riyooda marka qaybta ugu dambaysa shaqada hadda hayso kolla haddaa arday tahay haddaa business tahay shaqada hayso qayb kale waxaa jirto waxaa kusoo kordhin karta xisbiga 5 qaybood haddaa fikrad kusoo kordhin karto haddaa dhaqaale kusoo kordhin karto haddaa wax kasta kusoo kordhin karto intaas wixii ka dambeeyana waxaa iska leh xafiiska iska leh oo dhammaystiri doona meeshaas wixii ka dambeeyo Suldaan Gaasna waxaan leeyahay daay wuxuu yiri odayaasha marka waxaan leeyahay odayaasha laftigooda waa dhalinyaro weynaatay kaliya waxa dhawaataa ma lahan marka dhamaantiin soo dhawaada mar kale waxaan rabaa inaan ugu dambeyn aan mar labaad mar kale idin mahad celiyo xisbiga maanta inaa ku soo biirtaan anaga laftigan waxay noo tahay dhiirigelin iyo farxad ay noo tahay waana markii labaad oo kulamo noocan aan qabano kulanka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay Mbali sidaan iyo silamidaan loo soo dhaweeyay maantana sidaad xisbi ugu soo biirteen anaguna aad ayaan soo dhaweynaynaa qof walbana meeshan wuxuu ka tagay soo ah mulkiilaha UPD aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin